meerkani uu barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdilaahi ku soo maray deegaanada Togwa Jaalo looga diyaar garoobayo munaasabadda 18 May oo guud ahaan degmada Wajaale si ballaaran looga diyaar garoobayo ayaa guud ahaan barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi ku soo maray isagoo guud ahaan halkaas warbixin ka dhageystay maamulka degmada Togwa Jaale sida ugu diyaar garoobayaan munaasabadda 18 May waxaana halkaas uu qoran baa hadallo kooban ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Gabiley iyo maayarka degmada Togwa Jaale Cabdicasiis Saleebaan ku-xigeenka degmadaasi Wajaale waramay xaaladda diyaar garowda munaasabadaasi 18 May maanta waxaan ku nimi kormeer hawl ah 18 May degmada Wajaale kormeerkan oo daarana inaan ogaano una kuur galo qaabka ay ugu diyaar garowday degmada Wajaale xuska 18 May fooday nagu soo haysa oo inaga xigaan muddo 3 cisho waxaanu indhahayaga ku soo aragnay qaab aad u firfircoon oo qurux badan oo ay ugu diyaar garoobeen degmada Wajaale xuska 18 May diyaar garowgan waxaan marka ugu horeysa ku bogaadinaya oo aan ugu mahadnaqayaa maamulka degmada oo ugu horeeyay mayorku ku xigo iyo dhammaan hawlwadeennada kale ee dawladda hoose sida wanaagsan ee firfircoonada leh ay ugu diyaar garoobeen xuska maalinta qaran ee 18 May waxaan kale oo aan halkan uga mahadnaqayaa shacbiga weynaha reer Wajaale oo iyaguna si wanaagsan uga diyaar garoobay inay uga qayb qaataan xuska 18 May aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa maamul iyo shacabba waxaan idinku boorinayaa dadaalka halka imka ka sii wadaan inaad ka sii wadaan munaasabadan waxaan uga faa'iideysanayaa inaan halkan uga soo jeediyo bogaadin iyo mahadnaq madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo heshiis taariikhi ah oo ku saabsan maalgashiga dekedda Berbera la soo galay shirkad Imaaraati oo ah shirkadaha ugu waaweyn ee ka shaqeeya dekedaha waxa kaloo halkan kormeer isaguna inoogu yimid qabanqaabada sida uga socoto degmada Togwa Jaale si uu u indheeyo gudoomiyaha gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi gudoomiye magaaladu waa magaalo aad u firfircoon dadkeeduna aad ugu leeyihiin wax qabadka iyo dhiirigelinta iyo horumarka wadankooda iyo soo dhaweynta 18 May iyo go'aansashada jamhuuriyadda Soomaaliland safarkiisa ugu baxay Imaaraadka Carabta ee uu la soo heshiiyay kumbaniyada ugu waaweyn caalamka inay wax ka qabtaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dekedda Berbera taasoo ummadda wax u tari doonta waxaanu leenahay mucaaradka ka soo horjeeda ay iswaafaqeen cadawgeena jooga xamar iyo meelo kale waxay yiraahdeen ku dhawaaqay waxaanu leenahay waa hadal laga naxo waxa ka baxa yaana dibna la idinka maqlo waxa idinka baxay mar dambe ha ku celinina isagoo indheynaya qaabka ay uga socoto u diyaar garowga 25 guurada ka soo wareegtay maalintii dhidibada loo taagay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan hambalyo u dirayaa anigoo ah gudoomiyaha guddida qabaqaabada ee May bulshada degmada Togwa Jaale sidii ugu diyaar garoobeen maalinta qaran waxaan ku baraarujinayaa dhammaan ugu keenaya oo dhan haday noqoto calamo koofiyado jeeniqaaro wax kasta ku xusayaan May waxa iyadoo Jaale ugu dambeeyay madaxweynaha Axmed Maxamed Siilaanyo si ugu dambeysay weeyaan waxaan dadku ku booriyay in aad iyo aad ugu tawaashaystaan oo xusaan xuska May aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan bulshooyinka reer Wajaale runtii aad iyo aad u qaadanayaan aad iyo aad wax u sameeyaan iyagoo horta qof kasta jeebadiisa uu kala baxayo ina maxadana Mayga maanta kala soo noqon xorriyadda maxadana dalkiga hore Soomaaliya loo jiray anagoo dhalinyartii kacaanka iyo bariga dhalan oo ku faraxsan maanta qarnimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta soo dhaweynayno online 25 sano dambana anagoo iyadoo aqoon hesha ayaan ku mahadinaynaa waa Nimcaan Deeg Ibrahim TV qaranka Gabiley